السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتكم سودو هذا مقال كلا عصب ما أنت مقال كانوا حكوا سابسيا مقال لي صدري مقال كسر بل إن اللي يقول عصب إن فلانقين عن كسمية مقال كما صد داون دونا ده مرق لا وحكوا وضع برقدي مركان جارو تورتها إيجا تكتا وحنا إنك إن مدوات كحكينا جاء أنبا حكينا فيتامينات قار إن قفك كويريهن سيدا دقاتيرتا جريد هذيك كيني كرتا حتى إنها ما لا أفرع إنها الله ما أفركرا إنها ما لا أفركرا سؤاشاس وسوي دي الشيخ شنتاي مقال كامر كودا ما أسيغا يقول لابدونتا كهر معلومات أيان ربا كسابسان حالدان واربنا كهالله وعوان كيسو يهي صونك سامنت وليهي إنده صونك سامنت وليهي إنده لبايا أكلا قادة دونا مد كواد oo qofka hadii uu caafimaad qabo wax xanuun uu lahayn saameynta uu gaarsiin karto indhihiisa iyo in isbedelka indhihiisa ku imaanayo sidoo kale mid labaad aan ku falanqeyn doono waxay tahay xanuunaha uu leeyahay xanuun guud oo jirka iyo indhaha in loo soomi karo mid koowaad hadii qofka uu caafimaad qabo wax dhibaato uusan lahayn ayadoo ay jirto in isbedel uu ku imaanayo qanjira ilinta soo daayo ayadoo jirto in isbedel uu ku imaanayo habka dhiigga oo indhaha ugu dhex socdo waliba shabakada dambe oo indhaha ugu socdo ayadoo jirto in dhumaca isha hore ee muraayada hore isha in isbedel ku imaanayo kadibna ay bareesharka indhaha oo yara sare kici karo haddana soonkaas qofka uu soomayo wax saameyn kuma lahan indhihiisa wax dhibaato u gaarsiin karto soonkaas uu soomayo indhihiisa oo ka dhalan karto soonkaas ma lahan ayadoo isbedelkaas oo indhaha ku dhacayo arinta labaad aan ka hadlayno waxay tahay hadii qofka uu leeyahay xanuunada soo socda koow dhiikar haduu leeyahay labo hadii uu leeyahay cudurka macaanka mise sokorta saddex cudurada wadnaha ku dhaco afar hadii uu leeyahay cudurada xididaha ku dhaco shan hadii uu leeyahay xanuunada sida kiliyaha ku dhaco intaas oo xanuunaha hadii qofku uu leeyahay way ku kala duwan yihiin saameynta uu soonka u gaarsiin karo indhaha qofka xaaladahan leh waxaana loogu baahan yahay qofka markaa inuu dhakhtar uu la kaashado inta uu soonka u gudan xanuunadan soo socdo aan sheegayo hadartaan soonkoodu wuu xadidnaan doonaa qaarna inay soomaan looma ogolaan doono midda koowaad waxay tahay haddii uu leeyahay qofka indha qaleel aad u daran macnaha kama hadlayo indha qaleel indhaha casaanaya xil gudaha ma ka hadlayo xaalad aad u dambayso oo laga yaabo xataa qofka inuu wadi qanjiraha ilintiisa wax yar isbedel ku dhaca aragga uu ku way karo xaaladaas laguma taliyo qofka inuu soomo ama tarkiisa indhaha ayaa u xadidi doono soonka markaa qofka uu soomayo xaaladda labaad waxay tahay haddii uu leeyahay cudur yahay Steven Johnson oo indhaha ku dhaco dadkaas marnaba laguma talinayo in ay soomaan oo uma wanaagsano caafimaadka indhahooda mid saddexaad waxay tahay xaalad aad u daran oo dhibaatooyin shabakada dambe indhaha haduu uu leeyahay qofkan ayadana marka qaar uma fiicno oo soonkaas uu soomayo caafimaadka indhihiisa uma wanaagsano arinta afraad oo ah dhibaatooyin shabakada dambe indhaha ay soo gaarsiisa cudurka macaanka mise sokorta waliba khaasatan dadka kiliyahooda oo dhibaato u gaar dadkaas ayagana faa'iido uma jirto marka qaar inay soomaan arinta shanaad waxay tahay hadii uu leeyahay qofka cudurka glucoma waliba xaalad markaas ay ku soo aado qofka asigoo sooman waliba aad u kacsantahay oo kale dadkaasna looma talinayo sababtoo ah pressurekaas hal jeer uu kor u kici karo dhibaato ayuu gaarsiin karaa waxaa lagula talinayaa xilliga dhakhtarka indhaha kula taliyo oo barashka indhiis degsan yahay markaas inuu qofku uu soomi karo laakiin xilligu aad u kacsan tahay marnaba laguma talinayo dhibaatana way gaarsiin kartaa indhaheeda arinta ugu dambaysa oo arinta lixaad oo ah xididaha shabakada dambe indhaha hadii uu dhiiga si fiican ugu soconaynin oo laga yaabo qofka hadii uu soomo waxyaabaha keeni kara waxay tahay marka qaar isbedel oo nafaqada shabakada dambe ama dhiigaas hal jeer kor u kacay hoos u kacayo inay u keentaa laga yaabo qofka soonka uu soomayo iyadana waxaa lagula talinayaa qofka inta uu soomin ka hor in uu dhakhtarka indhaha uu la tashto kadib markaa soonka u guto hadii uu ku haboon yahay intaas aan soo sheego groupka xadidan yihiin oo soonkooda gacan ku hees ayuu u baahan yahay marka xaaladan waxaa la karaa indhahooda soonka xiriir way wada leeyihiin arinta ugu dambeeya aan kusoo gabay waxay tahay groupkan soo socda oo ah aragooda dadka aragga aad ku daciif ku leh laga yaabo inuu garaado wan xirto kale sidoo kale hadii uu leeyahay xaalad keratoconusida oo aragga daciif aad ugu dhigi karo groupkan kaligeeda hadii uu tahay oo wax kale dhibaato ayna wehelin soonka ay soomayaan wax dhibaato ay ku leedahay indhahooda ma jiro
soonkooduna way gudan karaan. waxaan rajeynayaa muuqaalka inaad ka faa'iidaysateen. su-aasha markaa uu sheekha weydiinayana haddii ay fariinteena ay gaarto muuqaalkaana asiga ayaa laga rabaa inuu jawaabo soonka indhaha ma loo soomi karo. idinkana asxaabta waxaan idinka rajeynayaa inaad muuqaalka aad sheer garaysaan. soonka cibaadada ilaaha naga aqbalo sida ugu wanaagsan oo ugu faa'iidaysan karna bisha ramadaan inaan ugu faa'iidaysano. intaas ayaa muuqaalkeena kusoo gabaynaa. waxaan idin rajaa caafimaad iyo indhafayow.